maanta waxa aad iyo aad u faafay cudur corona la yiraahdo fayruuskaas dadkii oo dhan ruuxbi baa ku dhacay xagee soo marahaya xagee gaaray argagax baa ku dhacay laakiin qofka muuminka ah meel kale wax ka eega meeshka ay gaaladu ay ka eegaan kama eego meel kale wax ka eega cudur kasto yimaada abaar kasto timaada muuminku wuxuu rumaysan yahay koonkan wax ka dhici kara ma jiraan illa bi taqdiir illaah ilaahay inuu qadaro oo jaangooyo mooyaan wax kale kama dhici karaan day caafimaad tahay day cudur tahay haday maalqameen ay tahay qaninimo haday faqri tahay haday amni tahay haday nabadgelyo tahay haday dagaal tahay haday tahay nolol haday tahay dhimasho wax ka shaqayn kara koonkan ka dhacaya ma jiraan illa bi taqdiir illaah ilaahay inuu qadaray oo jaangooyay mooyaan taa markuu rumeeyo ka bacdi wuxuu muuminku masna rumaysan yahay la adwa illa bi idn illaah bi taqdiir illaah cudur iska gudbi kara ma jiro illa ilaahay inuu ugu tala galay inuu gudbo mooyaane nabiga yiri la adwa cudur gudbaya ma jiro cudurrada la iska qaado oo faafa ayagu iskood madax banaan uma faafi karaan waa in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ogolaada oo u qadara inay gudbaan muuminku wuxuu rumaysan yahay wax ku dhici kara oo cudur faafa oo soo gaari kara ma jiro illa ilaahay inuu subhanahu wa ta'ala xaqiisa ka soo fasaxa mooyaan halka markuu marayo muuminku wuxuu tawakkulaya oo tala saaranaya الحي الذي لا يموت إلهيك حيك أو نولو أن دبنهاي كاسو توكلي أودي سئي أنتو اعتقادك يسويه أسكوكو جينيا إلهيك عذر رضي أمراض قدري إلهيك أن أقولين إن إسكت جدبان إلا أسوي إنه فصحا مويانه الله عسو كم جنجليا أو تلصارني وتوكل على الحي الذي لا يموت tala saaro Allah aan dhimanahay nin hadda jooga magaalada laga yaabo jamaacada inuu ku jiro ayaa qisa ii sheegay aayada ku saabsan gabar uu dhalay ayaa cudur ku dhacay dawana waa u garan waay waa iska dhigay guriga asagoo habba ku haminahay dhakhtarkee geysaa see yeesha haya habeenkii dambe gabadhii riyootay yarta ahayd waxay tiri ruuyadan ku arkay aayad mana aysan dhigan aayadaas mana aysan gaarin quraanna ma taqaan waxaan xifdiyo ruuyada ku xifdiyay tiri wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut aayadaasi aayad quraan sooma ha ab saasan ruuyada ku arkay qanaaca iyo iimaan bu ka qaaday gabadhiyo aan quraan aqoon ayaa waxay tiri wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ayaan ruuyada ku akhri oo la itus aabihi gabadha dhalay arintaasi waxay ku keentay wax weyn oo iimaan u ziyaadiyay ilaahay inuu tala saarto ilaahay buu tala saarto wax yar ka bacdi isagoo dhaqaatiir dibadda la xiriirin isagoo wadan kale u qaadin isagoo meel kale aadin baa waxa la jiradan waxa yaqaan in halka degan ninkii buu u geeyay caana geel iyo wax yar yar oo la isku daray ayuu cudurkii ilaahay sabab uga dhigo ilaahay ku caafi خلاص marka adigu ilaahay tala saaratid oo ilaahay aamintid ilaahay wuxuu ku fududeynaya asbaabaha aad ku gaari lahayd caafimaad ayaa lagu fududeynaya meel dhow laga tusaya waxa cudur faafahayo ordahayo la dhawaaqahayo dawladihii nuclearka samaystay oo aaminsanaa inay dirqiyeen oo ka adkaadeen ahl al-ard jamiican waxa dhulka joogo oo dhan tay nuclear u samaysteen la yiri dawlad heble ayaa hubka haysan karta oo kali ah adduunkana annaga ugu adag meesha ay marayaan iyo kibirkoodu iyo duqyaankooduna uu gaaray inayba ku dhiiradaan oo yiraahdaan mararka qaarkood samadan ahalkeeda maan dirqina haddaan dirqinay kuwii dhulka jooga haddaan dirqina kuwaana maan tilaabo ka qaadno korna dayax gacmeed loo diro xagga u dir tartan hal gal fayruus baa loo soo diray bal asaga meel ku sheega hub iyo ciidanka haysataan awoodda haysataan aqoonta ay ku faanaysaan
caqliga gaara in la yidhaahdo wax walba waa la ogaaday aqoonta طibbiga iyo caafimaadka iyo tiknoolajiyaddu waxay gaartay wax aan caadi innaba ahayn bay maraysaa hadda waxaa laga fakerahayaa qofkaan dhimanahayaa see u dhimanahayaa bal ha la fiirsho wax kastaa la iktishaafoo la ogaaday fayruuskan waxba looma hayo hadda iyo baaritaan iyo qalaqalax iyo qax iyo orod baa la bilaabay waxa ilaahay khasaa'intiisa ku jira awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala insaankan kibrey baa waxaa la tusayaa wax yar oo hargab laga qaadahayo oo gaarsiiyey in labada qof markay isi salaamayaan laa misaasayaan la istaabasha ma jirto lugaha la isku salaamahayo oo aan la isku dhowaanka la kala cararahayo magaalooyinkii baa la kala xirxirahayaa dhulkii iyo iskuulladii baa la xirahayaa meel walbaa laga qaxahayaa dadkii baa guryaha ku xirmala leeyahay raashinkiina qaata socodka iska daaya gacnaanta ha isku salaamanina ha isku dhowaanina kii jeegada loo xirayay baa ul dheer jeegada saas lagu leeyahay waa khatar maxaa ku dhex fakaday ma taqaana ku dhex orday wax faysa u jeedin indhahoodu qaban karin awoodda ilaahayna tusinaya subxaanahu wa tacaala meeluu ka soo abuurmayna aysan sheegi karin magac hore ay u hayeen aan la arag ayaa saa ugu dhex baahay mu'minku wuxuu fahmahayaa awoodda ilaahay weyninkeeda subxaanahu wa tacaala ilaahay buuna tala saaranayaa halaca iyo argagaxa hayaana ma hayo asbaabaha wiqaaciga ah oo ka hortagga waa la isticmaalaa sharciguna ma diidahayo laakiin argagaxa aan arkayno iyo meesha ay wax marahayaan iyo buunbuuninta la buunbuuninahayo mu'minku waxaa ma danaynayo walidaalika qofka muslimka waxaa laga rabaa wax alla wixii uu maqlay inuusan faafin iska ilaaliyo ishaacaad baa la faafinayaa dacaayaad baa la faafinayaa waxyaalo badan baa la keenahayaa saasaa loo dhex baahinayaa dadka dhexdooda oo lagu faafinayaa qofkii qabtaa waxaas ay soo gaaraan boqolaal ayuu u sheergaraynahayaa u tuurahayaa waa arrin dembi ah haddaad been faafisid adigu waxaa tahay dembigii beenta ka imaanaya adigana kaa soo gaaraya iska ilaali wax aadan yaqiin iyo hubaalkeeda aadan haynin ha faafin muslimiinta dhexdeeda ha ku faafin qofkii buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam man qaala halaka annaas fahuwa ahlakahum aw fahuwa ahlakuhum qofkii yidhaahda dadku waa halaagsameen asagaa halaagay nebigaa yidhi calayhi salatu wasalaam waa markii ahlakahum la yidhaahdo ahlakuhum dabdiga kale marka la akhriya waxa weeyaan asaga ayaa noqonaya midka ugu halaag badan akharuhum halaakan asagaa noqonaya musiibo iyo dadkii waa baaba'een iyo waa la halaagsamaydaas la baahinayo qofkii yidhaahda nebigu wuxuu yidhi asaga ayaa dadka halaagay ama asagaa noqonahaya kan ugu halaag badan adiga haddii ilaahay caafimaad ku siiyey faxmad illaah ilaahay caafimaad weydiiso amraadda khatarta ilaahay ka maangal ilaahay bari yaqiin ayaa la imaanaysa maalin dhoweyto asbuucan dhexdiisa ah ayaan waxaan ku soo booqday hooyo isbitaallada magaalada ka mid ah gabar ay dhashay oo dhowr iyo 10 jir ah 4 qalliin baa lagu sameeyey waa lagu guulaysan waaya kii shanaad baa loo bandhigay in lagu sameeyo ma lagu sameeyay quraan baan ku akhrinay xoogaa waa booqanay hooyadaas gabadhaas yarta ah oo ay dul taagan tahay oo 4 qalliin ayadoo arkaysa lagu sameeyey waxna laga qaban waayay qalbigeedu siduu u degan yahay iyo qanaacada ay qabto waxaan ku iri haday dhaqaatiirtu ay leeyihiin mid shanaad baan samaynaynaa ka waran maday tiri midka shanaad oo u dhimano ay sheegayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisu ku maqan yahay ilaahay baa caafimaad haysta ma lagu sameeyo qanaacada iyo deganaanshaha ka muuqda waa qof ilaahay rumaysan waxa ilaahay u qadaray rumaysan qalbigaagu markuu taa arko wax badan waxaa ku shukrinaysaa nicamka aad haysatay walidaalika الإمام صالح الدمشقي أيوه حسوا قولنا يا الإمام الذهبي وحكسوا قولنا هيا ويلك يسيب الله أطليا مركزوا يا بني هدي إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيهما لك دينك وجسمك وعيالك فأكثر الشكر لله ويلك يجي وهدي مال يهمين أي كصام مران diinkaagu kuu nabad qabo ilmahaaga iyo ahalkaagu kuu nabad qabaan maalkaaguna uu kuu nabad qabo faakthir shukra lilah in badan ilaahay ku shukri fakam min masluubin diinu wamanzuucin mulku
ومتهوك عرضه وحابضا مال كاس من دينك لغا سيبي mid boqortooyada iyo mulkiga iyo maalkii laga qaaday mid cirdigiisii iyo ahalkiisii la kufsaday oo lagu xadgudbay ayaa aad iyo aad u badan mid caafimaadkiisii la siibay oo laga qaaday ayaa maalinkaas badan oo dhacay adigana ilaahay waa ku badbaadi shukriga ilaahay badi in badan ilaahay ku shukri subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ahadu saalihiin يا وحو صوم مري وحو أهانين إندلا أو برس قبا أو لغلا أو قعملا مركزو وحو كدو عيسنا ليه هي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس إلهي ما هذا وحا إسكال عذر رب بدن أو ضد كسل لذا يدباتوين بدن أو ضد وكسل لذا إلهي عافية ما هذا إسكال ساسو كل علينا هي نبى أنتو دول استاجوا دقيستو وحو يري هم حا إلهي كعافية وإن الله ذا برس بعد قبطة ولقى لا أضحي وقع لا أضحي إنتاس أو مصيبة يا كوجو كل مي ما حيتها عافمات كأذ هي ستا بس يا ويحك جعل لي لسانا ذاكرا إلهي وحو إياه ليؤسي عرب في يوم إلهي حصهي وقلبا شاكرا يا قلب إلهي كشكرنا هياه وبدنا على البلاء صابرا إيام بدن إيا جسمي بلايدا كسبرها يا إلهيسي إمي ساد باطا هيزتا أو اللسان كودو ذكري إلهي وكقل لي أسسوم مرهين هنيقى قلبي يقوى في يوهو وحو لي وقلب إلهي كشكرين هيا عرب كيقونا إلهي ذكري قيسا أيوها يا بدن كيقونا أتكي سماء أيو لي يا هي بلايدا يا مصائبة إلهي أتكي سماء أيو إيسي يا هيستنم عظام ساسو وحان هيسنا انتاس حديثك الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام او صدح دعا انتاس او لبلاب او كبضان بان هيسنا